waa qiso jacayl oo dhab ah waxaana aaminsanahay haddii aad si wanaagsan u dhuuxdo in saameyn ballaaran ay kugu yeelan doonto. Waa sheeko jacayl ah oo dhex martay wiil u dhashay waddanka China iyo gabar ka soo jeeda dalka aynu walaalaha nahay ee Falastiin. Waxaa in muddo ah ay ka wada xiriirayeen dhanka iyo internetka oo ay iska barteen. Sheeko jacayl ah oo dhex martay wiil u dhashay waddanka China iyo gabar ka soo jeeda waddanka Falastiin oo internetka ku bilaabatay ayaa waxa ay ku dambeysay in wiilkaas iyo gabadhaas ay isku guursadaan magaalada Gaza muddo haatan dhowr bilood laga joogo. Diidmada ka timid xagga waalidiinta wiilka China ayaa ah mid ka badnayd diidmada ka timid waalidiinta gabadha reer Falastiin ah. Xafladda arooska ayaa ka dhacday bartamaha magaalada Gaza. Caruusadu waa Imaan oo ah gabar reer Falastiin ah, caruuskuna waa wiil reer China ah kaasi oo la baxay magaca Musa. Sheekadan waxay u eg tahay mid dhalanteed ah taasoo soo socotay 2 sanadood balse ugu dambeyntii waxaa la qiray inay tahay dhacdo sax ah oo ka dhacday Gaza. Muuse markii ugu horeysay waxa uu Imaan la kulmay sanadka markuu ahaa 2010 markaas oo uu Gaza booqday isaga oo turjumaan ahaa xilligaasi. Muuse iyo Imaan waxay sii wadeen xiriirka markii uu bilowday waxaana ay ka wada xiriiri jireen dhanka iyo internetka. 2 sanadood ayay ku wada sheekeysanayeen xagga internetka. Imaan waxa ay Muuse ku tilmaamtay nin Muslim ah oo haddana si weyn u ixtiraama haweenka. Muuse waa ninka kaliya ee aan guursan lahaa, qof kalena ma ahayn inaan guursado. Muuse waxaan u arkay inuu yahay nin Muslim ah iyo inuu yahay nin akhlaaq fiican oo xilkas ah. Mahadna Allah ayay u sugnaatay, aniga ayaa go'aansaday inaan guursado oo aan xaaskiisa noqdo ayay tiri Imaan. Muuse waa markii uu damcay in uu ku laabto Gaza oo uu arooska u yimaado waxaa saarnaa xayiraad inaan laga geli karin marinka Gaza dhanka isaga uu ka imaanayo. Markaasna waxa uu u babac dhigay dhibaatooyin badan oo waxa uu tagay waddanka Masar waxaana uu soo maray goobo si qarsoodi ah dadka looga soo gudbiyo si ay Gaza u soo gaaraan. Markii uu tagay Gaza waxa uu la kulmay Imaan aabaheed waxaana uu u sheegay in ay adkeed in uu ka dhaadhiciyo inuu yahay nin u qalma in uu geeyo Imaan. Imaan waxa ay sheegtay in ay ku adkeed laftirkeeda inay aabaheed ka dhaadhiciso in Muuse uu yahay nin wanaagsan. Aabahay si buuxda uma uusan ogolaanin guurka, balse ugu dambeyntii aabahay waxa uu ii sheegay in da'deedu ay dhaaftay 24 sano, sidaa darteedna aanan ahayn caruur ee aan gaari karo go'aanada la xiriira mustaqbalkayga ayay tiri Imaan. Dhibaatooyinkii uu wajahay intii uu raadinayay jaceylkiisa Imaan waxay ahaayeen wax aan caadi ahayn. Si kastaba ha ahaatee, markii uu dhuumashada kaga gudbay xadka ee ay isheleen, waxa uu la kulmay dhibaatooyin cusub. 2 maalmood markii uu joogay oo uu doonayay inuu aqal galo ayaa magaalada Gaza oo uu ku sugnaa Muuse waxa weerar cirka ah ku soo qaaday Israa'iil bishii November ee sanadkii tagay. Dantuna waxa ay biday in uu ku aqal galo waddanka China waxaana caruusadiisa uu sii kaxaystay dhanka iyo China. Isbaarooyinka Rafac ayaa Muuse lagu weydiiyay, miyaadan ka baqaynin in aad naftaada ku weydo halkan? Waxaana uu ku jawaabay, markastoo waxaan dhahaa nafteeda waxa ay ku jirtaa gacanta Ilaahay ee kuma jirto gacanta Israa'iil. Waan jeclahay haddii aad i weydiiso dareenka aan u hayo Shiinuhu, waxaana uu ku mahmaahaa Shiinuhu, meeshii qalbigaaga ku dego ayuu jirkaaguna ku degaa. Waxaa dhanka kale muuqata in labadan lamaane ay jaceylkooda ka guulgaareen iyadoo aan loo fiirinayn wadamada ay ka soo kala jeedaan, diimaha laga haysto, xiriirka siyaasadeed ee ka dhaxeeya iyo waliba macaamilka labada shucub ka dhaxeeya. Muuse waxa ugu dambeyn aqalgalkiisa uu ka dhacay China, iyadoona reer Falastiin ay iyaguna aad ugu riyaaqeen in gabadhooda ay ka guulgaartay jaceylka Muuse oo China ka soo jeeda.
warbaahinta Falastiiniyiinta iyo kuwa China siyaabo kala duwan ay wax uga qoreen arooskan iyo sida loo arko magacyo kala duwan ayaa loo bixiyay arooskii mideeyaha arooskii ka duwnaa aroosyada kale ee ka dhacayay meelo badan oo dunida kamid ah iyo waxyaabo kale balse Muuse waxa uu aaminsan yahay in arooskooda uu isku soo jiidi karo xiriir wanaagsan oo dhexmara shucuubta China iyo Falastiiniyiinta oo dhibaatooyin fara badan kala kulmaya Israa'iil ayaa waxa inta badan ay xakameeyaan in gabdhahooda ay guursadaan dadka aan ka soo jeedin deegaanadooda ee ka yimaada meelaha fogfog hase ahaatee Muuse waxa uu noqonayaa mid ka mid ah dadkii sida cajiibka lahaa u guursaday gabar reer Falastiin ah misna ku dhiiraday in uu Falastiin tago si uu jaceylkiisa gacanta ugu soo dhigo tani waxaan ka baran karnaa daawade in ay muhiimad gaar ah mar walba ku leedahay inaad ka gungaarto hadafka aad leedahay Muuse waxa uu u muuqdaa in uu ku dadaalay aadna waqti badan uu ugu bixiyay sida jaceylkiisa iimaan gacanta uu ugu soo dhigi lahaa waxyaabaha kale ee la yaab kale ee guurkan ku hoos qarsoonaa ayaa ah in dhaqanka labada dal halkaasi si weyn looga muujiyay China waa dad aad u badan markaad fiiriso shucuubta dalkaasi haddana waxaad moodaa in markii arooska halkaasi lagu dhigayay gabi ahaanba lagu soo bandhigay dhaqanka wanaagsan ee reer Falastiin gaar ahaan kan diinta Islaamka ayaa muuqatay in halkaasi dad badan ay ugu riyaaqeen waxaa laga yaabaa adiga haatan sida tooska ah u dhageysanaya qisadan in ay la yaab kugu noqoto in qof qaarad uu soo jaro jacayl balse adiga laga yaabay qofka aad danaynayso inaad isku deegaan tihiin inaad isku magaalo tihiin ama hal dal aad wada joogtaan haddaba maxaa ka hortaagan inaad kan gungaarto hadafkaaga ku aadan dhanka iyo jaceylka sidiisaba indha ma lahan sidaan wada ognahay haddana waxaa muuqata in qof kasta muhiimad gaar ah uu siiyo hadba waxa uu ka helo iyo sida uu ku heli lahaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo mucaashiqiin ah ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadlaan in caqabado kala duwan ay ku hareersan yihiin in ay ka gungaaraan jaceylkooda qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in daruufo dhaqaale awgeed aysan talaabo u qaadi karin xagga iyo gabadha ama wiilka ay jamteen qaar kale arrimo qabiil iyo waxyaabo aan munaasab ahayn ayaa lagu xayiray halka kuwa kalena aysan afkooda ka soo bixin waan ku jeclahay waan ku rabaa iyo waxaan doonayaa inaan mustaqbal wadaagno bal isweydii Muuse muxuu ku mutaystay in China uu ka soo baxo Falastiin uu yimaado isla markaana guul weyn uu ka gaaro dhanka iyo jaceylkii uu qabay iimaan sidees ayuu ugu dhiirigeliyay waalidiinta reer Falastiin ee gabadha dhalay in ay suuragal tahay in gabadhooda uu ka haysto uuna ku guursado gudaha dalka China waa dhacdo siyaabo kala duwan warbaahinta ay u hadalhayaan balse inta badan warbaahinta waxa ay qireen in Muuse uu yahay geesigii jaceylka ee ku dhiiraday in qaarad kale uu ka soo guursado dad dhaqan ahaan ay kala duwan yihiin inkastoo uu qaatay diinta Islaamka isla markaana uu baxsaday magaca Muuse haddana waxa muuqata in Muuse taariikh wanaagsan oo dhinaca xiriirka jaceylka ah uu ku soo kordhiyay dunidan waxaana hadalhaynta ugu badan ay tahay toddobaadkan iyadoo Muuse loo arko shakhsi wax badan bulshada ku soo kordhiyay haddaba daawadayaashiina sida tooska ah ugu xiran Dajiya TV waxaan ka codsanaynaa in subscribe ay inoo saaraan isla markaana asxaabtiina la wadaaga barnaamijyada kala duwan ee xiisaha badan ee sida joogtada ah idinkugu soo gudbino waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee aad barnaamijkan u dhageysatay isla markaana waxaan ka codsanaynaa in asxaabtaada aad la sii wadaagto mahadsanidin